wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta dalka kula hadlayay xafiiskiisa xarunta guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shaqooyin dhawaan ka dhacay magaalada Boorama. wasiirku waxa uu ugu horeyn tacsi u diray xubno ka tirsan ciidanka amniga qaranka oo ku nafwaayay rabshado ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, halka wasiirku dhinaca kalena uu mahadnaq ballaaran u jeediyay bulshada magaaladaasi Boorama oo suuro gelisay soo qabashada gacan ku dhiglayaasha dilkan ciidanka geystay. waxaan jeclaan tacsi uga soo jeediyo ciidankii qaranka ama ciidanka amniga ee booliiska ee ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday Boorama. ilaahayna naxariisi janno alla ka waraabiyo geesiyaasha ay naga baxay ku baxay iyagoo oo naftooda u horay inay badbaadiyaan nafaha bulshada reer Soomaaliland ee kale isaga dhigay dhibka. ilaahay baan uga bar ilaahay jannooyinkiisa fasiixa gaarsiiyo. marlabaadka waxaan jeclahay inaan uga mahad celiyo bulshada reer Boorama, khaas ahaan salaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo bulshada inteeda kale, gaar ahaan raggii ama muwaadiniintii gobolka Awdal ee qaybta weyn ka qaatay soo qabashadii gacan ku dhiglayaashii geystay falka aan sheegay, oo runtii si qiimo leh ula shaqeeyay ciidamada amniga oo ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan badankoodii. arrintaas waxay maraysaa meel gabagaba ah. waxa kale oo wasiirku u mahadnaqay dawladda Itoobiya doorka muuqda ee ku aadan dhinaca ammaanka, isagoo si gaar ah ugu mahadnaqay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar xiriirka dhinaca ammaanka ee xuduudda labada dal. dawladda Itoobiya haddii ay tahay muxuu ahaay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo haddii ay tahay dawladda federaalka aba sida qiimaha leh ee aynu uga wada shaqeyno wixii dhibaato ah ee ka dhaca xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya u dhaxaysa iyana mahad ballaaran baan u celinayaa. mid gaarana waxaan u soo celinayaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo runtii aad iyo aad isugu taxallujiya ama ugu hawlan sidii gobolka kani ama xuduudda labada dal u dhaxaysa ay noqon lahayd xuduud nabadeed. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde waxa uu ku eedeeyay rabshadaha ka dhacay gobolka Awdal inay dabada ka wado xukuumadda magaalada Muqdisho oo iyadu maara u eeday sugidda ammaanka madaxtooyada Villa Soomaaliya oo kaliya, isla markaana waxa uu digniin u diray cid kasta oo isku dayda inay qas ka abuurto gudaha Soomaaliland. arrintaasu waxa weeyaan arrin runtii dad wax magarata ah oo caqli gaaban oo cadow ku adeegsanayo ha ugu horeeyo kuwii aynu ka go'nay Soomaaliya oo runtii aanu ognahay inay dabada ka riixayaan Soomaaliland ay la mid noqoto Soomaaliyada ay madaxda u yihiin ee ay dabka ku gurayaan bulshadoodii. waxaanu leenahay dalkan Soomaaliland waa dal ummadiisa iyo dadkiisu midaysan yahay, ay wada jiraan. waxaana runtii aan u sheegayaa dadka fidmada wada inay cid kastoo isku dayda inay khalkhal geliso nabadda bulshada Soomaaliland iyo deganaanshihiisa inay dhexda farta ka qanini doonto. Nuuridiin Cabdullaahi Colijoog, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.